dalka Shiinaha ayaa sanadkan 2017 waxay isku taxalluujinayaan inay daaha qaadaan siraha iyo macluumaadka ku saabsan dayaxa iyo waliba meeraha Mars iyadoo baaritaanada hawada sare ay tahay mid tamar badan u baahan cid kastaana marka ay tamartaa yeelato ay ku dhaqaaqayso hawsheeda. barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa macluumaadka ku saabsan baaritaanada cusub ee Shiinuhu ka bilaabayaan hawada sare waana hawl la qabanayo sanadkan taasoo ku soo beegantay xilli ay Shiinuhu ka tooseen hordadoodii dheerayd mana aha Shiinuhu kuwa gacmaha ka laabanaya waxyaabaha u gaarka ah hay'adda saaminta hawada sare ee NASA. sanadkan 2017 Shiinuhu waxay sii deynayaan barnaamijkooda hawada sare iyadoo ku biiraysa quwadaha la yaqaan ee hawadaasi saameynta ku leh waxaana ay gaarayaan oo cagaha dhigayaan dayaxa dushiisa iyo meeraha Mars waxaana ay daaha ka rogayaan xaqiiqooyinka ku saabsan labadaasi goobood iyadoo sidoo kalena Shiinuhu inoo kala saaraya beenihii iyo khiyaamadii ay hay'adda NASA ka qarisay caalamka intiisa kale waana hawl asaaskeeda la soo bilaabay sanadkii 2013 xilliga ay sii daayeen dayax gacmeedkoodii John Aswe kaasoo inoo soo qaaday sawirro ku saabsan hawada sare oo aynaan ka helin barnaamijkii Apollo ee ay NASA maamuli jirtay. tiro badan oo dadweynaha oo daawaday sawirrada muuqaalkoodu tayada leeyahay ay Shiinuhu ka soo qaadeen meeraha Mariikh ayaa waxay haatan aaminsan yihiin inay hay'adda NASA ku ciyaartay sawirradii ay hore inoogu soo gudbin jirtay iyadoo taana u sameysay si ay xaqiiqada inooga qariyaan. talaabo loo arko inay tahay bilowga dagaal qabow oo horleh ayaa Shiinuhu waxay soo saareen buuggooda hawlgallada hawada sare oo ay ugu magac dareen buugga cadda. haddaba muxuu yahay buugga cad? runtii waa su'aal ku soo dhacaysa dhammaan dhageheena. buugga cadi waa buugga ay ku dhammaystiran yihiin dhammaan mashaariicda qarada weyn ee ay Shiinuhu soo dhammaystirayaan muddada u dhaxaysa sanadka 2017 ilaa 2022 waxaana halkaa mashaariic badan oo ku taxalluqda hawada sare waxaana ka mid ah rabitaanka Shiinaha ee ku aadan inay qabsadaan hawada sare oo yeeshaan gacanta u sareysa ee loo daba fadhiisto waana tallaabo cusub oo caalamku u qaaday dhanka dagaal qabow oo mar kale ka dhex bilaabma Shiinaha iyo Mareykanka dagaalka oo aanu ka maqnaan doonin dalka Ruushkuna waana dawladaha u kala tartamaya inay dayaxa qabsadaan oo ka jeexdaan dhul ay leeyihiin. barnaamijka hawada sare ee Shiinaha waxaa ka mid ah diritaankii dayax gacmeedka hawada sare ee Genji 3 oo inoo soo qaaday sawirradan aynu aragno koox horle oo cirbixiyeen ah oo loo diro qaybta gudcurka ee dayaxa halkaa oo ay Shiinuhu ka dhisanayaan xarun u gaara waana xarunta ay ku adag tahay adeegsiga iyo ismaqalka raadiyowga lagu xidhiidho waana kooxaha hirgelinaya oo yegleelaya rug ay kooxaha ka dambeeya ku soo hirtaan waxaana ay halkaa ka abuuri doonaan xarumaha xidhiidhka iyo kuwa raadiyowga si ay u hagaagto oo qaab fudud ugu qabsanto hawsha xidhiidhka ee cirka iyo dhulku. arrinta in la xuso mudani waa inaanay dowladda Mareykanku raalli ka ahayn inay Shiinuhu gaadhaan qaybta madow ee dayaxa kooxaha Shiinaha ee dayaxa loo dirayo sanadkanna waa kuwii ugu wanaagsanaa ee weligoodba hawada sare loo diro waana kuwa xitaa la aaminsan yahay inay aqoon ahaan iyo agab ahaanba ka horumarsan yihiin kooxihii maareynayay dayax gacmeedkii Apollo ee ay hay'adda NASA lahayd. Shiinuhu waxay si wacan uga dheregsan yihiin inaanay Mareykanku dib ugu laaban dayaxa tan iyo sanadkii 1973 iyadoo ku noqoshada la'aanta dayaxa ee Mareykankana ay Shiinuhu u arkaan mid ku timi shay ay Mareykanku ku soo arkeen dayaxa oo ay caalamka intiisa kalena ka qariyeen waana shayga ay kashifaadiisa xilligan isu xul saareen Shiinuhu si ay basharka aadamaha ugu sheegaan oo ay ugu soo gudbiyaan xaqiiqada ka jirta halkaasi. sanadkan gudihiisa waxaa la iska daba dirayaa labada dayax gacmeed ee Chang'e 4 iyo Chang'e 5 ugu dambeynna waxay ku tala jiraan cirbixiyeenada Shiinuhu inay ugu dambeyn runta soo taabtaan sanadka 2022 waana kooxihii ugu horeeyay ee ku qalabaysan tiknoolajiyadda ugu horumarsanayd waxaynu sugnaaba waa tartanka hawada sare ee Shiinuhu ula badheereen dalalka Mareykanka iyo Ruushka waana xilli ay Shiinuhu isku dayayaan inay guud ahaan baynaga maydhaan fikradihii aynu muddada dheer ka haysanay hawada sare.